الرحيم مقعي هو محمود حاج عبد الرحمن موسى كون مقع دير شجاع waxaan ka yimid magaalada Jigjiga oo muddo 5 sano hadda ka shaqeynayay sidaad sheegtay waxaan hayaa mad la socotaanba waa milkiilaha hotelka City Crown Hotel oo ku yaal magaalada Jigjiga dhacdadan runtii aad ka foosho xun ee dhacday bari bay 21 jirsanaysaa bari bay u buuxa 3 week oo 4 hadii la yiraahdo waxaan runtii markii hawshan dhacaysay maalin Arbacaa anoo iska joogeen hotelkayga ayaa la yimid waxaan lagu amray baabuur inaan raaco waa la qaaday markii waxa la sheegay in la wado la baahan yahay ninkii soo din Axmed la soo doonay oo dambareesh kamid ah kilka ama qoliyaha ka hortaga gobolka wuxuu sheegay inuu wado jananka iyo baahan Cabdiraxmaan طبعا dhaqan aan ku aqaanin ma ahayn Cabdiraxmaan oo ahni aan saaxiibnahay Cabdiraxmaan laba gool jananka markuu ii baahan yahay qaab aan u wada hadalnaa jirtay ama si aan u ballanno wali ma dhicin inuu qof baawurkiisa hayn ii soo diro ama qof aan diroolkiisa hayn ama isaga aan isqaabilno ma aysan dhicin runtii xaaladda iska kacsaneed wadanka markaas oo dhakhtarka weyn oo gurigeyga wuxuu ka damay dhakhtarka weyn hotelkeyguna dhakhtarku soo horjeeda intaan soo socday ayaan waxa arkay xaalado cakiran jeedko la xiray ambalaasyo iyo cayadad la keenay dhaawac iyo meeyda oo la sheegay dadkii awday lagu soo waxyeeleeyeen hotelka marka cabaar jooga saacad duhur tukada ay hawshan dhacday marka ninkaas ii yimid baawriir wato igu qaaday commissionka booliska meesha la adeegay markaas waxaan ogaaday in ay isan ahayn wada hadal iyo waa lagu baahan yahay inay hawsha tahay hawlinta ka adag anoo meesha fadhiya waxa la hadlay qoliyo kale ku hadlayeen telefoon hotelkii ma soo xiray ee la isweydiiyay runtii maadaama hadda meel media TV cid kasna daawanayso marwa tafaasiisha qaarkood iyo aflagaadada iyo cayda dhacaysay inaan ka hadlo laakiin si aan runtii foolxum ay wuxuu dhaceen oo markaan meesha tagay commissionka cabaar kadib waxa laga daba keenay inamadii hotelka shaqeynayay labadii ugu muhiimsanaa inankii hotelka managerka ahaa iyo inankii front desk ka shaqeynayay front desk managerkii iyo managerkii hotelka dhan labadii wiil ee markaa joogay hotelka ugu tageen iyo dad kale oo shacaba ayaa laga soo kaxay meeshii wiilashiyo laba kamid aad loo soo garaacay wali mid kamid dhaawac muuqda ku yaalo gacanta garabka ilaa tunka runtii aad baan uga naxay meesha la keenay طبعا saacada aan joogo waan xiranahay meel bal fariisiyay sawira oo ku taal commissionka dhexdiisa waxa la ii sheegay ma jirto markaasaan gartay horta hotelka inuu xiran yahay namadii la keenay iyo hotelka ma soo xirteen loo hadlayay marka cabaar fadhiyay muddo nus saaco ku dhow ayaa waxa laga daba keenay haddana ugaaskii reerka ama ugaaskii Bashjarso oo nin dhalinyaradii laga soo kaxay hotel kamid ah inaan qaraabana hotelka iska joogay oo customer ah oo Jamal Xajaana la yiraahdo isna inta gacan loo soo geystay ayaa wax lagu qasbay in guriga ugaas geeyo sidii lagu keenay ugaaskii annagoo inteedii fadhina 5 ayaa waxa dhacday haddana in dhalinyaro fara badan oo kale oo markii dam ogaaday inay yihiin shaqaale ka shaqeeya warshadaha ama ganacsiga kale ay shaqada magaalada ku leedahay ganacsatadu la soo kaxeeyay oo meeshii lagu soo xiray commissionka booliska run ahaantii markaasaan ogaaday sababta u xidhan inay tahay reerkan ka dhalnay darteed oo dadku waxa la weydiinay qolo ma tahay oo la soo fadhiisinayay dhalinyaro fara badan la keenay baawur lagu wado dad si xun runtii loola hadlayo loola dhaqmayo oo dharbaaxa iyo gacan wixii lagu dhufan karay lagu dhufanayo iyo aflagaado aad runtii u fara badan reer kale aflagaadeynayo markaas horta waxa ogaaday inay tahay dadkan waxaan la isku ina hayb socto reer meesha lagu soo ururiyay waxaan ugu horeysay in la hadlo nin macawis qaaran oo commissionka booliska ah commissionerka kilka ayaa noo yimid anagoo sii jeedna shujaaca uu buuri waan istaagay dadkii dhan uu istaagtay wuxuu yiri xabadda ka soo riday jinacsani waa idin fasaxna anagu bariim wixii loo gaaro markaan waxaan farxaan oo masaasad garateen intaas war islaafsanay طبعا si official iyo wax rasmiya ma jirin waraysi iyo wada hadal iyo sababtaas u xiran tahayna ma jirin
waxaa dhacday inaan meeshii fadhino ilaa salaadii maqhrib iska tukanay cishaaygii markaan tukaday ayaa igu horreysay interview laga qaado hadalkii lagu bilaabayna wuxuu ahaa in la yidhahdo awaday waxa ka dhacay waad ogeeday maxaad nagu soo sheegi weyday runtii waa iska ayaan daro qofka bini aadanka xuquuq ilaahay subxaana watacaala asalkaba sidiisa u karaameeyey xuquuq insaanaba ilaahay siiyey haddana sharciga dalka aan joogno ee Ethiopia iyo kilalka shanaadba bini aadanku inuu ku karaameysnaado ayay tahay waajib oo sharcigu khaas u dhigaya marka adigoon garanay sabab lagu soo xidhay dacwad laguma soo ogin lagama dhegeysan muxuu ahaa ashkato cid ku soo dacweysa ma jirto maxkamad maad soo marin yani wax tallaabo sharci oo meesha ka dhaca habeenaatee ma jirto inama dhalinyaro oo runtii dharka booliiska xiran oo qol ku jira ayaa dhowr jeer ii yeedhay ilaa 2-3 jeer mar walba inama jaadka iska cunaya iska qaylaya runtii dhalinyaro oo su-aasha ay ku weydiinayaan waxay uga jeedaan aadan garanayn ciidanka jaarsada ma ka war haysaa iyo hawlo runtii aan qof ganacsada anoo kala oo investor ah dalka dibadiisa ka yimid ku yimid baaqi madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo wasaaradda arrimaha dibadda muxuu ahaa Ethiopia safaaradooda Sweden runtii baaq fara badan loo jeediyo qurbo joogta aanu qayb ka ahaa anigii walaaladii oo 4 year oo hotelkan ila leh waxaan kala deganahay Finland iyo Ingiriiska anu Finland ma deganahay Munir iyo Mubashir Finland bay la degan yihiin Marwan iyo Maxamed Rabiicna waxay degan yihiin Ingiriiska London marka shanteeda weeyaan kulli waxaan ku nimid baaqi madaxweynaha iyo kale dalka laga shaqeysto oo halama algashto muddo 5 sano ka hor bilownay hadda hotelku 2 sano iyo 3 bilood buu function yahay ama service bixin oo shaqeynaya runtii habeenkii sidaan ku xirnayn subaxii ku xigtana baawur baan loo keenay waan lagu guray waxaan loo musaafiriyay jinacsani markaasaan horta xaqiiqsaday ninkii wuxuu sheegay inay tahay anoo la yaaban oo runtii se wuxuu dhacayaan baawur qabaalan lagu soo qaaday marka hore ama hardtopkan oo pickupka sida loo yaqaan markii dambana baawur in tareeya oo dad fara badan oo oramo oo laga soo qaaday meelo kala duwan oo dal kamida ay ku jiraan ba la saaray Cuba lagu wareejiyay inta aan socday waxaan arkay runtii waxaan lagu farxin dad fara badan oo mas'uuliyiintii kala ka tirsan meesha way taagnaayeen waxaan dareemay qaarkood inaysan ku faraxsanayn inay shujaac arka baawur qabaal dhex fadhiya ama dhalinyarada hotelka city karaan ama dad kale oo inaysan daacad oo iska masaakiin oo soo tarxiilay kuma faraxsaneen dadka qaarkoodna way is og yihiin sidii xaflad aroos leeyin oo kale qoslayeen dadka qaarkoodna aflagaada ay leeyimaadaan oo baawurka meeshii xaaladii aan ku jiray Ilaah og yahay anoon ugu talagelin nin dacwad loogu yeeray ayaa bay siraan moqto xirmis ay wad ka dhaxaysaa baradaada iyo beedkaaga sidii aan ku soo baxay aan ayaa habeenkii ku dhaxan ku soo baawur ku soo koray marka way jireen dad runtii aan saan jeclaysan u hadlay laakiin waqti meel laga hadlay iyo meel laga jawaab ma joogin sidii buu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu badbaadiyay marka waxa isweydiinta mudan waxay tahay dadka matalaya dabcan dawladdu waxay ku shaqeynaysaa xog ay hesho weeyaan marka xog baan la soo weydiiyay war xogtan ma la filter garay ma la shaandheeyay ilma sharci waxa ka jira nidaam ba ka jira hay'ado waxa ka jira cadaaladeed maxkamadaha ka jira wasaaradda cadaalad ba ka jirta hay'adaha dambi ka hortagga iyo dambi baarka hay'adaha dhammaan tirarkii hay'ad sharci ay lahayd oo dhan uu ka jira kilka Soomaaliyeed waa meel Ethiopia ka tirsan ma aha meel Ethiopia ka baxsan runtii waxaan soo weydiiyay intaas oo dhan ma la maray sidee bay ku dhici kartaa ilbiriqsi maalin habeen gudahood in la yiraahdo iska baxa haddana ha baxa la yiraahdo wixii jaarsa ganacsigiisa inta la xidho inuu iska baxo qofkii gacan loo geysan karo qofkii la dhibaateyn karo dhibaateeyo oo saas ku dhacdo waxyaalaha isweydiinta u baahan waxa weeyaan xogta ay dawladdu heshay dawladdu xog bay ku shaqeysaa sirdoon bay leedahay ciidan nabadgelyo leedahay marka waxa la isweydiinaya war waxa u baahan in madaxweynaha iyo ay la xisaabtamaan runtii dib la iskugu noqdo waxa meesha ka dhacay iyagu isweydiiyaan ani maaha maanta qofkii la weydiin lahaa because anu waan joogay waana soo baxay amar laygu yidhi ku bax baan ku soo baxay alxamdulillah hadda waa nabad qabaa
wax la gaarsiiyey falagaade iyo riix ka ahayn ma jirto dad far badan oo gacan loo geystay waan arkay wayna joogeen dhalinyarada la shaqeynaysa kamid ee dad kale oo garanayba marka waxa ay andaraa meel dawladnimo iyo sharci nidaam ka jiro in adiga oo wadanka heshiis baan ku joogaa marka aanu ahay qurbo joog marka investor ahay waxaan ku joogaa heshiis oo saxaxay inaan political intervention samayn karayn dhaqankaygana kuma jirto dadka kililka joogan oo yaqaan iguma yaqaanaan hadda iyo darna dabcan horta ninkii xaq uusan lahayn gacanta ku haystaa isagay dhibaysaa anu hadda maanta xorriyadeedii iyo aan haysto caafimaadkay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaa muhiim oon dadka meesha oo degan wada deganaan doonana oona kala qaxayn inaysan dhicin inay reer iyo jaarsa reer hebel la dagaalsan aysan dhicin dadkan meesha abka abbay deganaayeen way soo wada dhaqmeen dad kala guuriya ma aha marka siyaasadda waxaa la rabaa inay shucuubta midayso iyo qabaa'ilka kala duwan ma ogiya inay shucuubtii kala geyso habeeraatee wax saxa ma aha dowladdana mar labaad waxaan ugu baaqaya xogta ay heshay ee dadkan kula dhaqantay sidaa foosha xun loola dhaqmay ee go-aana degdega soo baxay balorta in laismuraajiceeyo oo la yidhaha war waxaan lagu kacay ma wax saxsan buu ahaa ma wax khaldan buu ahaa xaggey ka yimaadeen qofka bini aadamka khalad uu geli kara lakin khaladkiisa inu muraajaceeya la rabaa haatan ugu dambeyn wixii aan maanta jigjiga iga yaala dee saan ugu soo dhaqaaqay iga tahay hantida aan jigjiga ku leeyahay ama nin familkiga ku leeyahay hotel iyo ganacsi bakhaarna laga xidhay ma aha waa nolol weeyaan waa meel aabbahay hooyadayba ku dhasheen marka isaguma isweydiin kii faraxsanaa markaan kasoo baxinay magaalada jigjiga ee sida dambiilayaal nala soo tarxiilayay isagaa isweydiin doona dowladda muxuu ka tirsan ee ku faraxsanaa cidduu shacab ka dhigan doono oo maamuli doono isagaa isweydiin oo cadaalad ka raba inay mataqaanaa inay harsadaan ilan meeshan process iyo procedure ayaa dowladnimo lagu noqdaa marka waxaan leeyahay madaxda sida dowladdu dadka ay wax u dhiibatay ama dadka muxuu ahaa dadka dambi kusoo oogaya amaba xogtan keenaya dadkan inay dambiilayaal yihiin runtii in laga fiirsadaa fiican ilaa hadda aan joogo dembigaasaad gashay shujaacow maxaad ugu tala gashay layma odhan si cad oo bareer un baa laiga soo kaxaysa hantideedii waa la xiray subaxiina waa laisoo musaafuriyey ilaa haddana sababta ma garanayo hadday hantideedi maqan tahayna dee anigu cid maanta horta iga wakiilo jiga joogta familka way degan yihiin qaraaba degan dad fara badan baa degan oo famil nahay laakiin walaalahay baa degan cid maanta aniga iga wakiila haba yaraatee hantideedii aan ku ogahay ma jirto even janis waa la ii siin waayey inaan soo maro bal aan soo arko oo xataa kasoo dardaarmo waxba la sheegay meeshay xiran tahay iyo dhagahadal fara badan bakhaarkayga markii ugu dambeysa la xiri la idhi ka dareera siti karo meeshuu maray ayay maraysaa marka waxaan qabaa dadka magaca dowladda ku hadlaya shacabka iyo dadka investorska iyo dadka dowladda u yeedhay saa ula dhaqmaya in laismuraajiceeyo runtii tusaale waxay u tahay tani fawdo ay samaynayaan dad fara badan oo shaarka dowladnimada xiran haddii maanta ay aniga igu dhacday ama in lamida berina kuwo kale ku dhici doontaa haddii aan laga tababushaysan oosan dowladdu processka ay raacayso markay cid rabto inay dembi kusoo ogto inaysan yani inay ka fiirsato oo sharciga lagu talagalay la maro haddii sharci la maro qofka waa la xidhi karaa dembi baa lagu soo oogi karaa waa lagu caddayn karaa maxkamadaha jiray nidaam saan kasoo hadlay hayada sharciya ugu dambeyntii waxaan leeyahay qofkii xaq ka maqan yahay o dhan ilahay xaqiisa u soo celiyo intii la dulmiyena dee waxa weeyaan qofka madluumkii isagu waa kii la dulmiyo uu iska seexanaya dhib ma lahan laakiin kii wax dulmiyey ilama inuu hurdo ladayo wuxuu is ogyahay dembigu galay iyo intaas jecel uu kala kaxeeyey inta wanaag ku dhaqnayd iyo muxuu ahaa dad mas-uuliin iyo shaqaalahoodii dad konton qof ka badan ayaa sidii kaloon ka shaqaynayay iyo ganacsiyada kala duwan intaasoo qof waxaa la weydiinayaa dadkii warxumo tashiilka u geeyey hay-adaha dowladda ayaa laga rabaa maalinta qiyama ilahi subxana wa taala kala xisaabtami doona adduunka iyaga la weydiin doonaa waa accountable wadan sharci le ayaa la joogaa ethoobia oo xeer ka jiro nidaam ka jiro sharci ka jiro ethoobia aniga dowladda heshiis bilateral kula jirtaa dowladda finland maadaama nin citizen ahay finlandese waxaa la weydiinayaa sababta ay ku dhacday hanti marka hore sharci iyo legal ku samaysantay in si illegala qofkii looga soo dhaqaajiyo saan dabcan xogta ku hay cid wax boobta iyo wax ka qaatay ma jirto laakiin de askarta hortaagan iyo waxay ka sameeyeen gudaha iyo waxayna ka sameyn
ila qof og malahan iyaga mas'uulka sababtu u xiran yahayna iyagun baa og marka waxaan ugu dambeyntii leeyahay in ethnic clearance ama bahsooc ama reer ay dawlad saa ula dhaqanto runtii sumcad daray ku tahay dawlad inay shacabkeeda saa ula dhaqanto anigu I'm not involved wax ka dhacay awday iyo su'aalihi loo weydiiyay waxa kamid ah maxaad ugu sheeg weyday awada wixii ka dhacay waxaan ku adiga shaqaatan maxay gal wixii ka dhacay qofka booliiska in nabadgelyo ilaahay waxa shaqaysteen ogaado dhibka jira dawladdu sirdoon bay leedahay inay mashaakilka jira ogaadaan laakiin anigu dawladda kama tirsan shacab baan ahay qof dambi fal kula jiro oo dacweeyna ma jiro qof soo dacweeyna ma jiro marka awday waxa ka dhacay gurigeyga hotelkayga chief wax ogeysiin habeerateen ma garan karayo marka waxay la tahay waxba la ii sheegay dadka awday lagu laayay oo hadda gadaal ka maqlaya 6 kamid in reerkayga yihiin anigana waxa laga soo saaray dadkaagii baa dad laayay waxa ka sii ayaan darab badnayd markii jinacsani laga soo kaxeeyay ilaa intaan ka soo gaaray naasireed dad ilaaliyo ciidan lagu soo daray si aysan dadka oromadii ee dartood laga soo saaray magaalada Jigjiga iyaguna is dilin oo qof afarmo ku hadleen ilaa oromo ma moogta marka waxaan leeyahay